gabar walba oo isqaawisana iigu sheegaraya walaalayaal gabar walba oo caanimo ku iibsanaysa naarta walaalayaal iyadana iigu sheegaraya walaalayaal haddaad dacwadda igala qayb qaadataan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka raali noqdo waxaan rabaa dacwadda inaad igala qayb qaadataan oo gabar walba qaawan aad gaarsiisaan oo lagu ataagareeyo waliba kuwa sida khaaska ah iyagoo qaawan u soo gelaya tiktoka youtube-ka iyagoo qaawan u soo gelaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعنا ولا ريال ما أنت وحككو بيهاي أما وكساب سنيهاي هواك عارياتك إلهي أكتيسا يا مؤمنين تأكتوذا درجة ay ka taagan yihiin haweenku iyadoo caariyaada maxaa xukunkeedu yahay haweenka caariyaadka walaalayaal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sayakunu fi aakhir ummati ummadayda aakhirkeeda waxa ahaanaya nisaa'un haweenkaasoo kaasiyaatun dhar xidhan caariyaatun oo qaaqaawan haddana iyagoo dhar xidhan ayay qaawan yihiin calaa ru'uusihinna madaxyadoodana ka asnimati lbukti baad moodaa neef geela kuriskiisa oo qallooca ayaad moodaa oo timaha xaggaa laga xidhayo saa loo xidhayo diintu way nahyiday nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waxa uu raaciyay xadiiska alcinuhunna nacdala fa inahunna malcuunaat way nacdalayihiine nacdal waa maxay soomaalidu nacalaaba iska dhahaya nacdal waa maxay waa naxariista ilaahay ha kaa fogeeyo naxariistiisa ilaahay ha kaa fogeeyo oo ilaahay kuuma naxariisto wey marka haweenka marka la arko ilaahay idima naxariisto la dhihi kuwa dharka xidhan ee haddana qaaqaawanow walaalayaal intaa kadib gabdhahani xaafaday ka soo baxaan walaalayaal ehliyad bay leeyihiin dad bay leeyihiin dadkooda sidaa raalli uga ah ay miiriyaha kusoo gelayaan iyagoo qaaqaawan ama dadka aan miiriyaha gelinba ee iyagoo sida dharna xidhan dharnaan xidhnay suuqa socda walaalayaal xaafadooga hadday saa raalli uga yihiin dayuusiin bay noqonayaan dayuuskuna jannada ma galo xadiiska aakhirkiisa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ishaaray 500 oo sano meel loo socdo marka loo jirsado jannada ayaa waxaa la urinayaa udgoonkii jannada xitaa ma urinayaan urta jannada haweenkaasi caariyaadki ma urinayaan mar walaalayaal haddaad og tahay inaad dhimanayso aada og tahay inaanad noolaanayn aada og tahay inaad dhiman oo lagu xisaabin walaal maxaad naar u iibsanaysaa walaashaydii muslimaddaay maxaad naar u iibsanaysaa walaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ka boq walaalayaal naartiisana iska ilaali mar haddaa lagu yidhi janno inaad gasho warkeeda daa urteeda ma urinaysid waxaana laga urinayaa 500 oo sano meel loo socdo marka loo jirsado jannada ayaa la urinayaa udgoonkeeda walaalayaal gelid warkeeda daa haddaa lagu yidhi urin maysid oo hubto inaad dhiman oo hubto inaad ilaahay lagu soo hor istaajini walaal maxaad u iibsanaysaa naar wallaahi kari maysid dhimbiil daba oo gacanta saa lagaaga dhajiyo u kari maysid in naar lagu geliyo warkeeda daa ma waxaad ka dooranaysaa naarta iyo ciqaabka ilaahay iyo cadaabkaad ka dooranaysaa caan inaad noqoto
ma waxaad ka dooranaysaa labis yar oo adig kula qurxoonaaday ayaad ka dooranaysaa walaal ilaahay amarkiisii bal haweenka qaar baa dhahayo walaaladiin baa nahaan caayina khadka marka laga caayo aywa in la idin nacdarawi oo la idin dhaho ilaahay idin naxariisto walu fiirsada walaalayaal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam salaadii baa eeg la yidhi laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin illa bikhimaar haween xayd gaadhay salaadeeda ilaahay kama aqbalo madaxeedoo dadan mooyaane walaal u fiirso madaxeedoo dadan mooyaane mar salaadii ilaahay haddaan lagu aqbalayn madaxood dadan mooyaane maxaad u malaynaysaa walaal maxaad u malayn nabigu sallallahu alayhi wasallam awrada dumarka isagoo tilmaamaya ayaa wuxuu yidhi ina imra'atan idaa balaqat ilmaxiid haweeney kasta hadday xayd gaadho ama xayd isku aragto lam yuslix uma suubana ilaa an yuraa in la arko mooyaane ilaa wajhaha an yuraa in la arko ilaa wajhaha wejigeeda iyo wakafayha iyo labadeeda baabaca mooyaane weji waa intaa wixii wejiga iyo labadaa baabaca mooyaane inta kale waa cawra wey gabdhuhu lugaha inay waxaa la rabaa qariyaan hadday saa usii jiida ka war walaal markaa lugta intii kale ay saasturto diricii hadday saa u yar qabsato bowdyadeedii la arkayo waa arrinaan bannaanin weya walaalayaal marka gabdhahayaga muslimaadka ah ee walaaladayada qaaliga ah waxaan u gaarsiinaynaa in ay ka tanaasulaan arrintaas maxaa kuu diiday adoo asturan inaad wacdido maxaa kuu diiday adiga oo asturan inaad wacdido waxaa la hadlayaa iyagana walaalayaal dadka markay gabadhu isqaawiso sheerta u badinaya laaytana ku badinaya iyaguna waxaa leenahay walaalayaal waa dayuusiin weeyaan xumaanta iyaga ah dadka walaalayaal usii tilmaamaya marka inaad caan noqoto gabadha muslimadda ay ha ku iibsanin inaad naar gasho oo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa cadhoodo oo xanuuno darani kugu dhaco oo jirkaaga xumaan loo geysto oo dhibaatooyin kale lagu geysto marka waxa weeyaan in sha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa muslimaadka qof kasta oo muslina oo fiidiyoodan soo gaaray waxaan rabnaa inuu badbaadiyo walaaladeenna muslimiinta haweenka ah in la badbaadiyo oo waxaan rabnaa fiidiyoodan la wada gaarsiiyo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala cid kasta oo nagu garab siisa faafinta fiidiyoodan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala maanta ay ramadaan tahay oon 27 bisha ramadaan ay tahay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raali noqdo dembigiisana allah ha dhaafo walaalayaal meel walba fiidiyooga gaarsiiya gabadh walba oo isqaawisana iigu sheegaraya walaalayaal say u gaadho walaalayaal gabadh walba oo caannimo ku iibsanaysa naarta walaalayaal iyadana iigu sheergaraya walaalayaal ha la iigu sheergareeyo waxaan rabaa haddaad dacwadda igala qayb qaadataan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka raali noqdo waxaan rabaa dacwadda inaad igala qayb qaadataan ood gabadh walbo qaawan aad gaarsiisaan oo lagu ataagareeyo weliba kuwa sida khaaska ah iyagoo qaawan u soo gelayo tiktoka youtube-ka iyagoo qaawan u soo gelayo waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka raali noqdo sheergareeya aad u sheergareeya walaalayaal wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu